بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في الجول ده لك أول بركة من يدور تلك الرعد من ضرب وكان كدركم سجود نظام سكان بقوم ده وفد سوق عم وزير وزارة كده عبد القادر محمد نور أوسيمين لان كده بايد دمد وجد جوال كبقول برد الصومال كده باخدني تم إلا مكون أو قويسين بساس الجورية يكون لان حمل بركة يقول بحان ده يرتبع حلو عبد الله آدم أحمد بلاك أول كل مقاركم مدن يرد هر خميس لأيام مقالة بيدبا حسب السنة أوسيمين ونقاركوا يدرشين كودركم في البيدا خبرات منهم من قدر كانوا الفوش كوا حكية dagaalka Ukraine muddo la maalmoode qandaraasan darko fisan ka dhawaada warkeen midoo talka laabay ogeysiis isbitaalka taqoosiga Muqdisho waxa ku soo biiray Dr. Tamam Alhamwi qabiilku taqoosiga qalimada neerfaha burooyinka maskaxda la rabarta inta uu joogay waxa uu fuliyay kiisas badan oo guuleystay sidoo kale waxa isbitaalka ku soo biiray Dr. Basil oo ah qabiilku taqoosiga qalimada afka wajiga daamanka dhaawacida shilalka nagu soo booqo tawfiiq miisaanka dhuxusha agtiisa Muqdisho Specialist Hospital daryeel iyo khibradaas ku haleyn karto adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees xanasnoo fil guriga dhimo lahminiyo markaasiyada waa jamaacad artiga keedinsiyeed ka bilshan 2023 daraasan darko fisan ka dhawaada qabla wafdu soo gaamiyo Abdul Qaadir Maxamed Nuur Jaamac waa wasiirka wasaaradda dekedo iyo waliba gaadiidka waliba markaasi ay dirana degmada wejida gobolka Bokola waa Cabdicasiis Taruuri yani faafaye wafdu suugaamiyo wasiirka wasaaradda dekedo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Abdul Qaadir Maxamed Nuur Jaamac oo geeka Switzerland ka dhawaay degmada wejida ee gobolka Bokool wafdigu mayba garoonka ka dhawaay maamulka degmada wejid saraakiisha laamo amniga odayaalka dhaqanka iyo qaybo shal duwan ee bulshada magaalada wejida markii wafdiga la dhawaay ku dib mayba Switzerland ka dhawaay fagaaro magaalada wejida inkoring mayba goobta ku hadalay gadoomiyaha degmada wejid mudane Xasan Abdi Isaaq Bootal isoo dhawaay wafdigu isu gaamiyo wasiirka dekedo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya كل وزير كيكا دولة فدرالية الصومالي أنا بلاه شعب الصومالي برلمان الصومالي وجهها سني سنو دو الجي اس بي هاي الريلوي تردونا ني وزير كان الجي اس بي سني انتافري سني إنسان يسكن اللي أنا بلا قدومي ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Bokool mudane Aadan Abdi Awaare oo dhanjay ku hadalay yaa xusiinay bulshada reer wejid dawlad jeerin geekan ay tato farxada ningaasiniyo markale is aragna raalaada seen kuma hadnagaan waqtigiisin habiideen ee sharaftiisin hanin dhawaytan wafdi wasiirka horkahay yaa ku mid hay dabcan wal sheegay magaalada Aadan Abdi Awaare gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Bokool farxada ningato إني ونكوين وزير كهنا هركها مركز هذا وزير كبدوغ الروجة مجال القاضي عنده كلي إني ونسيم ما هاد نجنا يسيني معمول كين فرحة نيجته شعور تلقى رأيك بدل أنت وجد قرض جرني وجد معه ما يبغاها جاز بين حزبيرك المدن معه هو بجاز بين هاي سنة جامعنا هاي سنة دقنا دانون وجدته ولنا إلى هجرة ولنا إلى ملة marka JSB jaamac goob ku kulmeen Soomaaliya dhan may buu JSB inna gadaas hubna eediyada kama nagaana gabagabadii mayba goobta ku hadalay wasiirka wasaaradda dekedo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Abdul Qaadir Maxamed Nuur Jaamac isna eedanka mahadceliyay bulshada reer wejid oo geeka Switzerland dhawaayeen lanki oo gaar gacan wadad hal riyo lanki waayal ee fadhiga ku kiray lanki wala aajisoolada dadka aajisoolowka isku jaraan sariirtaan ku kaana biyaha ka shiboy meelo ka gurayaan garaaga intuu sawka garwaa bogay waa banaaway lama barba ka laaway waa bolale dagiigan kolay ka bolale garmay haana maradu wadan aragay yaana farasi wal wadan maradu suba wal hay suba durka boorkan kooytan idoogi kin han ku tabtan sada sharafta leeyo sineen maamustan seen kuma nagaan degmada wejid degmo la ka kasaw adkaysi sharaf maamuus martaqaad la ka kasaw degmada wejid degmo badshe nabad nakasaayan olaad nakasaayan degmo dadka sharafan eed may la raayin qiimo badan guud ahaan shacabka degmada ka nool
dogool bilaan ariir dhammaantiyo dhallinyaro barbaar dhammaantiyo may lahaa eedaan mahadsantin sada sharafta leh karaamada leh isin hanin dhawaytan mahadnagamadaan intaas unkutaba degmadan weejid may ka diiwaan gallana 28 kun oo muwaadin oo sharaf leh oo karaamo leh oo codsho dhiibadaana ka diiwaan gallan may rajeeyay tira fayl oo waqtisho kaararsho ka qaadadan inta jaran haan kaleena sidii sharafta leh karaamada leh oo ya ka coday koran hadii ilaahay arka coday doona mayn kooyay koow inti dadkay i deegaankay habooqda lama isbedela deegaanka ku dhihi isbedela gobolka koonfur galbeed guud ahaan ku dhihi isbedelkaasay inti la jaan qaadan reer weejid inti aan wali tabartay atan sharaxa barwaaqadan sootan sharaxoon kooy soomaali sidii hore ma waagii hore may buahan dadka malaaga iyo lamada qofoodoo laabata galli ya xildhibaanahaasiin xulaayeen ya golaha deegaankaasiin xulaayeen ya guddoomiyaalkaasiin xulaayeen ya madaweyneyaalka deegaanka kiidinkaasiin xulu jareen laakiin hata may baa laka qasbanaaday intii isin lahasiin ku doonada codkin xukuumaddan dangaran may baa ku shaqeeyo haytay awoodda intiisin lahaatan intii isin may leeraay codka lahasiin ku raadsada intii isin sharaftiya lahaatan lanki fadaasan doortan lankiin fadaanana ma fadaana ertan atiku dam walanismeeriyaayo minatee hibalo meelali magacaaga dheegdana leero ma jarta go-aanka isin isku leh tan lamaad unumay enaa xisbigo JSB leero xisbiga cadaaladii wadajirka leere af soomaali shay calaamadiisna shimbirto cagaarno beryahaan inta kaaraga jartan aqbale inta kaaraga asaga aqbale shimbirtaas cagaaran barwaagi la cagaaranta shimbirta cagaaran nebada la cagaaranta shimbir goranaasan calaamad nebadeedu mayba kale awoodiye etaa lanki dhulka rooga wala hoostisi alla hortisi alla arage lanki irka roogana may arage wala dhulka yaal dhong arage shimbirto buubta may walaas wala ay dhong aragaas dadka dhonga may laraa cadaalada sheenas dadka dhonga may laraa kuwar gabaas calaamaduna shimbirtan dooranaysaasuu haa dadku arka jaramay magaalanka hore waay ya xurriyadda irka jarta shimbirta madi buugas oo shaalayaas aragdana aqbalaye wala dhulka yaal dhonga kuwar qabta un may fadaana shimbirtaas shaalayaasa dooratan may fadaana nebada dooratan nebada shimbirta nebada calaamadan ata nebada dooratan barwaadana calaamadan ata shimbirtaasay iyo lambarka tumi shanteen hilmaanteen hoobalanki shimbirta aragoy lambarka aragoy aragaaltamaa shimbirtii tumi shanta aragoyta xisbigii oo siinsheeniyu intiisin codaytan kahor oga jaray kahor lan siin laadalo oo odkiya fadaana lee jaray lan siin diiwaan galiyo jaray xisbigii madaxweyne xasan sheekh hogaamiyay oo isim cod ka siinsheeni oo awoodiisin hasiinnagiyu dogowdamba oo min inta galla hibano hasiin dooranasan araasa ma jarta gabirta go-aan ku deeras kurika go-aan ku deere waayarka go-aanka ku deere lanka ganacsatada ee go-aan ku deere isin dhonga go-aan leh un marka may fadaane uni sheegni intiisin wal doortan koo horta una dheenka shibo areenjeeda iyo eelwiini walaa un hana suri koraasta minate baydhow ay hamar dhatiyo laka shal qiibsada jaray walaa inta hana suray oo isin ninkiin sheeni may buaha awoodamba oo meelkal un raadsada doonga ma jarto awooddaaniisinu sharaftaaniisinu walwalba aan isin wal siin keena hoo isin walan hayn un walma nagada kor may fadaana marka reer waajid guud ahaan intii baatoodkay dheegas intii idaacado ku daawado doonto intiisin in sheega doontaan oo minate ka garaaca doontaan
وفول بيسنسين كمدا ما يلفدا يرتك دقن قراعة إرن ما يوبرواقن تجرت أنت مين دورو وفول بيسنسين كمدا أنا هاتو سفيرو من التسادة الباب قراعة دكامة سادة ما يلا رايس التسادة ولا مقالة كيال أو ولا وتهاي صدق بسرني أوير ما أنت أسيل اللي إن شاء الله مقرانة لفدا بلتو مشاعر العضاء دون ما أنت أسيل لانكو كان أنت مقرانة لفدا ها لانك كواي بيك شبا ولا أكو كذا منك أتكا ولا كذا كذا هاي أتكا كوي ديبويد ونما يفدان أمريكا جودهان خير ما يلا راي واجد أنت ما يلا رايس JSB وذن لقدان JSB دورهدان of course ونمديدني إن ده كلر صاحبه أنا هو ترتمو مديدني لكن ونما يفدان ده كده يجان كوني شغله أتكا ونون لينك أبغى جود أنت أتكا نسيان إيه ما سنتين ممكن كان بالبرواقو روب فايلقو بدي مالتي ما ممكن تكو باي دكتور روق وضاي شرف دكتور برواق دريرت إيه ما سنتين بيروح الفرض يهوب وضد كدي بتنكو بعد إلى هيك يروح لكن مالنتا زي أي برلين بدي مالنتا شقاي كرايل قوني مالنتا زي أتكين كجهاد أتكين لانكي زنجيلين خاصة JSB انكشرة إيه ما سنتين حتى قدام بقرب بقو إيو مرة دور كجار إيو فرس روراس إيو ولا سايلك إنكسين كباويلني إيه ما سنتين دمين كأب بقول كجار أما قولة تي كان كجار دقمدن كأب بدن ودقمدن شرفته يسين له ونو مشرحنا ما يبواها إيه مدوو ما يلا رأيس إيه مدوو ولا ونكدورني أو كأب إلهي رافلتني سكوي دونا يعني سرح دونا لو وايل برلمان معمولي ما يلا رأيس إلهي كيرونا وزير هالنقدي ديجان كان لك كسو خير بقول أو on reerba koolena mis reerbaya norta reerba koolenina mushara reerba koole teegin jilan kala doordaane ha heesaasan isku fadahay ma madigisin mushara haan on reerba koola la koyni doo reerba koolku gooba mayla raayis reerbaya no kumen gooba reerbaya roogen mayla raayis maamula roogen koolkan may fadaane reerba kool guuleysnaga fadaan reer wajid ما يبان سيفونين مدون ريروجي ده يتين JSB يتين مدون رير بكول يتين لما ده جارب ما ينهي لي أصلا رير بكول ونفتر كده المستقبل كا عدد أو حل بعنا أنت هم دون أنت يصير مدون الويني على إنجيل تدتيه يصير مدون كسر ما لما ندتيه يصير مدون مركو حل بعها دون لانه نسين كوي دون حتى لكن أكون رادي هاين حل بعنا دي أو معمول كوفر قلبت إيو قولي ديجان كيسين أنت كلا هايتم عدد كاسي ما يفضان مركا سيشرف لك رامل لأنك عدايتان إيدان ما سنتين عبد العزيز سكتر وراينت ورتلك أرلادي degmada weejid ee gobolka Bakool dowladda Soomaaliya wali biyana ka dhawaaqday inay tum ila mukun oo qoysiyo markaasi nasaasa guriya raanasan markaasi link sameeyo ridin dejiyo wasiirka wasaaradda howlo guud iyo waliba guriyeenta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba markaasi isu geeka ka dhawaaqay war farxad leh kaasoo markaasi ciidan fariiq isu diraw shacabka ka dhaqan gudo magaalada Muqdisho gaar ahaan shacabka markaasi deganaa guriyaha dowladda sida ay sheegtay guriye markaasi abu siiyo haye xanason markaasi sidoo kalena ana barakiciye ka sameeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka waliba ka dhawaaqay go'aan in dowladda federaalka ee Soomaaliya tumo ila mukun oo markaasi guriye iyo markaasi indasaas shacabkii danyartaha iyo waliba xan markaasi sameeyay barakicintii waliba iyadoo markaasi in sameeyo dib u dejin guriye markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dasaas wasiirka waliba sheegay in xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda ka sarsarayta maalmahan iyadoo yeeshid ka doonaan la ilkun oo guri xanason markaasi ana loo dhiso doona deegaanka markaasi jaziira sidoo markaasi wasiirka soo ka sheegay waliba sagare ana sidoo kale ana ka sheegay shacabka magaalada Muqdisho iyo waliba guud ahaan gobolada dalka markaasi la deersii doona mashruucan kaasoo markaasi inay gobolada dalka oo dhan markaasi la dhiso doona guriyo oo markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ku talagalay shacabka danyarta si ay ku noolaadaan guriyaga soo markaasi ay guriyo dhameystiran walyaabo kasta wana guriyo markaasi la dhiso doona hab casri ah waa ku wasiirka oo wartanada dowladda qorshaha dowladda ay ugu talagashay guriyeenta ama dib u dejinta dadkii Soomaaliyeed runtii qorshahan
qorsho bilowgiisa aan rabno inaan ka bilaabno caasimadda muqdisho weeyaan waxaa noogu xigo guud ahaan gobollada dalka waana qorshe qaran oo ah in dadkii Soomaaliyeed muddadii 30 sano dalkan uu burbursanaa sidii ku meel gaarka ah waqtiyadii kala guurka ahaa ama qaxa lagu jiray degay goobihii aan munaasabka ku ahayn ama isku raranka ahaa ama lahaa goobihii biyo-mareennada ama lahaa goobihii waxbarashada xafiisyadii dowladdu marka qorshe waxay dejisay dadkaas loogu sameynayo guryo ama dhul looga bilaabayo guryahana loogu dhisayo guryahaas oo ka duwan sidaad boorarka gadaasheeda yaala ka aragtaan kuwii lagu yaqaanay dadka qaxootiga ama barakacayaasha ama buulasha lahaa ama jinkadaha lahaa marka kuwan waxay ugu duwan yihiin waa magaalo dhammaystiran oo ay ku dhammaystiran yihiin waxyaabihii asaaska u ahaa nolosha qofka oo ah waxbarashadii caafimaadkii goobihii carruurta ku ciyaarayeen iskooladii iyo suuqyadii waxaa sidoo kale ka abuurmi doona shaqo abuur ballaaran oo dadka meesha degaya waxay sidoo kale qayb u heli doonaan inay ka faa'iideystaan iskoolada meesha laga furi doono u badan kuwa farsamada gacanta iyo kuwii caadiga ahaa sida standardka u samaysnaa marka qorshahan oo ah 12,000 oo guri oo dad ku dhow 80,000 oo qof ay ka faa'iideysanayaan laakiin feeska koowaad aan rabno inaan ku bilaawno ilaa 6,000 oo guri aan isleenahay maalmaha soo socdo ama bishan ugu soo aadan bishan dhamaadkeeda ay madaxda sare ee waddanka dhagax dhigiisa ay ka shaqeyn doonaan waxaa ka faa'iideysan doona dadkii ka baxay ama sida ku meel gaarka u deganaa goobaha aan munaasabka ahayn sida aan sheegay wasaaradda waxay sameyn doontaa qaab casri ah oo diiwaangelin ah oo gudiyadii dadkii xaafadaha ahaa ay degnaayeen lagu diiwaangelinayo lagu dhexgelayo lagu baarayo qof walba meesha uu degnaa taas oo ah in la siiyo guryahaas ama deegaankaas cidda munaasabka ka ah ama xaqa u leh waxaan rabaa qorshahan ama istiraatiijiyadan inaysan ku ekeen kaliya caasimadda dalka laakiin uu yahay qorshe aan ugu talagalnay dhammaan dowlad goboleedyada dalka inaan ka hirgelino ayagana aan shir dhowaan nooga dhaci doono magaalada muqdisho wasiirada howlaha guud 11 bishan aan u gudbinayno dalabkeena ah inay keenaan dhulkii loogu talagalay dadkaas in looga dhiso guryaha guryeenta marka tan anaga waxay noo fududeynaysaa inaan yarayno dadka gudaha caasimadda kusoo barakacay muddada dheer joogay inay si ku meel gaar ah noloshooda uga baxdo laakiin ay noqoto nolol waarta oo ay deegaan rasmi ah ay carruurtooda ay helaan sidoo kale qorshaha magaaleynta ama casriyeynta caasimadda muqdisho ha noqoto ama gobollada dalka maadaama dalkeenu uu dhismayo horumar badan socdaan wadooyin badan la dhisayo in dadku qaabkii u degayaan inay noqoto qaab casri ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo runtii dadaal badan arrintan geliyey waqti badan geliyey awaamir nagu siiyey qorshahan sidii u hirgeli lahaa iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo asagana runtii nagu hogaamiyey qorshahan sidii u hirgeli lahaa saad ka warqabtaan bil ka hor hoteelkan maanta aan joognay Dakaale waxaan ku daafurnay 1,700 oo qoys dad kor u dhaafaya 10,000 oo dad barakacayaal ah deegaanka Doolow Jubbaland loogu sameynayo dib u dejin iyo caafimaad iyo waxbarasho la mid ah tan maanta aan ka hadlayno marka taasna waxay qayb ka tahay qorshaha xukuumadda dan qaran oo guud ahaan siyaasadda noogu jirtay muddada 5 sano ah ay ahayd ilaa 20,000 oo guri in dalka laga dhiso ummadda Soomaaliyeed loo dhiso dadaaladan waa si laba jibaareynaa runtii waxaa daba socda oo wasaaradda howlaha guud shaqadeeda qayb ka ah magaalo markii la dhisayo magaalo la casriyeynayo waxaan ka marnay in kaabayaasha dhaqaalaha la hormariyo oo ay qayb ka tahay wadooyinka guud ahaan dalka waxaan hadda ka wadnaa ama bilowga dhismayaashiisa ay ka bilaabmeen 100 kilomitir waxaa qayb ka ah oo dhawaan soo dhagax dhignay wadadii Cadaado Dhuusamareeb ama Dhuusamareeb Qaradhi dhawaan waxaan bilaabaynaa dhismaheeda beledweyn kala beer
buundooyin badan ku jiraan waxaa socdo dhawaan dhismaheeda bilaaban doono haleeya ina buuxa oo Somaliland ah sidoo kale dhawaan dhismaheeda waxaa bilaaban doono oo maalmaha nagu soo aadan ama bilaha nagu soo aadan shaqada aan bilaabayna doolow balad xawo waxaan sidoo kale qorshaheeda ama hadda dhismaheeda aan bilaabayna oo gabagaba ah oo shirkadihii arintaas ku guuleystay ee shaqadeeda bilaabin doonaan wadada isku xirta Djibouti ama Looyacada Boorama marka siyaasadahan guud ahaan waxay qayb ka tahay aan wadno in wadanka la casriyeeyo wadanka istiraatiijiyadda iyo wadada uu aadayo ee quruxda badan la hormariyo marka waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed baahida u qabtay guryaha in maanta wixii ka dambeeysa oo wado cusub oo u furantay siyaasaddaasna dawladda ay jeexday dhawaana aan arki doontaan fulinteeda ama dhagax dhiga mashaariicdan ballaaran xildhibaan Cabdullaahi Balaag wali bisuun la kulmay qaar ku mid dhalinyarada reer Khamiisle ee magaalada Baydhabo Bashir Maxamed inay faahfaahiye tan waliba ay tahay munaasabad seher sare ee laha agaasimo waana hay'adda sharaf iyo waliba kulan isoo waraysi oo lan gobada dhalinyarada reer Khamiisle waana martigeli xildhibaan Cabdullaahi Aadan Ahmed Balaag yalla ka gobada beledka Baydhabo harunta ku meergalka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya kulankan yahay ko seher sare laha agaasimo waliba ku qeyb galay qiibo shalduun ee dhalinyarada odayaalka dhaqanka aqoon-yahanada iyo waliba qiibo kale ee reerka ujeedada kulankan yahay dhiirigeliyo kamadayow waliba isku hirowka dhalinyarada reer Khamiisle iyadoo diiradda la saaray doorka muhiimka ee dhalinyarada ka leeyin horumarka bulshada nabadda wadajirka waliba hoojiyowka iskaaladowka bulshada dhatiye inta kulanka dareeriyo waliba la isdaafsaday fikrado iyo waliba talooyin walkuole oo la xiriira horumarka dhalinyarada iyo waliba sidii door muuqday oo ku qaadada lahaayeen isbedelkan ka dhig deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya markay kulanka dhamaaday waliba odayaalkii waliba aqoon-yahanada iyo waliba qiibo kale ee dhalinyarada siwiin ku maadnageena xildhibaan Cabdullaahi Aadan Ahmed Balaag dadaalka joogtada oo sila garab suranyi bulshada reer Khamiisle gaar ahaan dhalinyarada waliba tilmaameen in xildhibaanka marwalba isan suranyi danta guud ee reerka horumarka isla markaana door weyn u soo qaaday madayowka bulshada waliba taageerada dhalinyarada sidoo kale waliba ka boorarina inta la majibaaro kulamada noon oo kale oo la iskaashanaaw qiibo shalduun ee reerka maadaama hoojiyow isku duubnaaw iyo waliba wada sheegayow iyo waliba isfahamka reerka dhatiis khayray ma idinka faraasana azumaad libaankan azumi ka faraasana boqolkiiba boqol ka faraasana waluna ku sugaaniyo waana ka lahayni walaalkaynu xildhibaankaynu usuna metele waluna ku fadaaniyo marka waylana shirarkan ani liinku daalna dareeran lagu gaal hoob dhiga galan ma hal hala liimbiye lanki hata gadooday geekan kooynan dibliinka nagada walaalnimadiisa liinku maarmaan ehelnimadiisa liinku maarmaan tolnimadiisa fadaana ini tolki limadeeye lanki guraad qaboon guraad iyo ku maslahayo ku shaafi ya ambaahna afar awka mees iskihirin xildhibaasha horbooda in haadan fadaana haano fadaana إن شاء الله إلهي إذن شيء وأنا نقداس هذا مدران سعارة اللي ماينين ويري بشار قوي نين ويري هالدوان كي كميس عبدالله بلاك هاي سميرني أسومي ميلسان إلهي ما تيسو بملك قابو ولاقي هذا اليو قصد هذا اليو تلها يا ميلوس نين ويرين كمها سني دولة هتحضر إرتو لان روح والله كدوس الفضاء إلهيت أو بركة قبتك ويلا سلامتين لان كاسني ويري إن شاء الله مدي دمبين أنتي أن ويبواها لان كاني ويري وليس كونفور قلبها كل كرم يعني شيء لأن شيء رب كلام مجرى الحمد لله إيدي أنا سنة إيدي أنا فرح سنة جيك ولا نسك كوين رونجنات حفلة قضاء أو إسحاق ورئيسي أو تلقين إسكاكوي حلبان كان ينويري حلبان كان عبدالله بلاك ونوليها مرنا سياسنا أو معمول كهدد مع ذي كونفور قلبات مدونه تلقينا هل إسبسينا حتى أورمك اللهان sababta wali hay tay xildhibaanka inoo mahadey korna beledka alxamdulillah hada dawlad u suqeeyay kaliya ya dhisadaan xildhibaanka in ilaahay dhaaf xildhibaanka iyadaan ka faraxsana matalaad dhab ee ku haysana wali nin dhimagna in sheeno ku rajeeyaan insha Allah
bashir maxamed cabdullaahi arlaadi t v beledka baydhaba xisbiga sinacad waliba soo simiin qorko iyo doorashooyin ku darar koonfur galbeed madaxdan ka sareeyay xisbiga sinacad oo markaas wartalada lagu hubeen iyo waliba eedaya dalagana sidii markaas maaraytay dowladda federaalka ee Soomaaliya doorashooyin koonfur galbeed ku darara iyadoo markaas aan ka baaqin inay ulxay xasan sheekh maxamuud isu haddii isu doorashooyinka koonfur galbeed ku dararo isu kawada isu kurooji waaye markaas isu ku baxayaan doorashooyinkaasi alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa calaa aalihi wa saxbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد عاو جمعة في دنيا مهرة بشمي أي تهاي تضبط وحن هل كان حرمته حزبي سنانتي عدالة السنعد المجال بيدبو كونفور قلبت سوماليا أنو كوكبان الناس وذا جرأة أنا جو حكيه جود حزبي سنانتي عدالة السنعد iyo musharaxa xisbiga ee hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya waxaanu shirkan jaraa'id ku qabanaynaa xarunta dhexe waxaan ugu talagalnay inaan uga hadalno qaladaad waaweyn oo ka dhacaya doorashada koonfur galbeed ka socota taasi oo aanan saamaxaynin in sidii dimuqraadiga ahayd loogu talagalay doorashada ay ku sii socoto oo khatar ku keeni kara habsami u socodka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud باقي يوم مدة صواني جديدة برنامج دورة ثقف يعد كان ووكي وحنو كمدنا أنا قدرت كو قنعي إلا هذا أنا كو قنعسن إن دورة ثقف يعد يكاد عيسى ذلك الصومالي إن حمر يان كسوق قبرني وحن جوجنا ما أنت بيدو وأنا رمنا إن كونفور قلبت كي قيب قادنا دورة ثقف يعد ذاتك شعب يكون دجن إن كونفور قلبت كل قنة أن ويدي سنة عد كذا سي حزب جاسي مشرحين تود heer dawladaha hoose ee golayaasha deegaanka ah iyo heer wakiilada state-ka ama xildhibaanada state-ka ilaa heer madaxweyne aan rabno inaan dadka codkooda weydiisano si murashaxiinta deegaanka u dhalatay ee xisbiga sinacad ka noqdahay nasiibkooda uga qaadaan kuna guuleystaan waan ogsoonnahay waan ictiqaadsanahay in uu yahay tartanku cad iyo madow oo nasiibku ku kaali doona ama uu ku garay laba nin ka maqsuusa ayaa liri laakiin gartu waa inay caddahay way waadix tahay sida uu madaxweynuhu ugu dhawaaqay u socdaan wax kasta laakiin waxaan kala kulanay siiba 24 saac ugu dambeysay qaladaad waaweyn oo doorashada wax u dhimi kara oo halkan ka jira oo haddii aan la xalin aysan suurtagal noqonaynin inay doorashadu sii socoto maartay xisbiga sinacad oo ka sii qayb qaato waxaan rabnaa inaan soo qaadano hal iyo labo qaladaadkaasi waaweyn oo dhacay oo ay kamid tahay annaga waxaan leeyahay barnaamij Brita oo Jimco ah ka dhacaya Baydhabo stadium-keeda weyn oo xisbigu uu ka qayb qaadanayo activities meesha ka dhacaya ciyaaraha barnaamijkaasi oo isku waafaqnay guddiga ciyaaraha Olombikada Koonfur Galbeed Soomaaliya iskoor istaagna ku sameeyay nala yiri xisbi u xiran yahay gaar annaga oo 2 isbuuc ka hor qabsanay meeshaas waxa fiican in maartay sheeg ay u sinaadaan axzaabtu fursadaha iyo jaanisyada laakiin waxa soo baxday oo qaladka labaad uu yahay xisbiga JSP xisbiga talada haya oo dhammaan wixii awoodo siyaasadeed iyo awoodihii propagandada iyo awoodihii dhaqaalaha ee dalku lahay si gaar ah ay ugu isticmaaleen waliba si xad dhaaf waxa jirta in shacabka propaganda qalada oo doorashada dhanba weecinaysa oo mabaadi'da doorashada asaasiga ah meesha ka saaraysa inay sameeyaan doorasho dhaxdooda ah inay dadku u cadeeyaan waa inay doorashadaas dhaxdooda ay tahay ay xubnahooda ku soo kala reebayaan laakiin in Baydhabo la yiraahdo qofka doorashada xisbiga JSP ka dhax socota bas loo tuso in qofka ku soo baxay uu yahay xildhibaan oo already magaalada ka warqabtiin magaalada Baydhabo xaflada ay ka dhacayeen taas waa qalad marin habaabinaysa doorashadii iyo habsamadii u socotay in maartay sheeg la siyaasadeeyo in mabaadi'dii iyo wixii aan ku qanacnay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqay ay baal marsan yihiin waxa caaw Baydhabo ka socda sidaas darteed waxaan rabnaa shirkana jaraa'id inaan ugu baaqno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in xaaladda Baydhabo ka socoto uu soo farageliyo maartay sheeg aragti dheerna loo lahaado waxaan dalbanaynaa sidii aan hore u dalbaynaba in observers ama indhayaal ama muraaqibiin caalamiya ay meeshan yimaadeen si ay ogaadaan waxa ka dhacaya Soomaalidu waxay ku maamaadaa ama afeef hore lahaw ama adkaysimo dambe lahaw annaga caaw waxay naga tahay afeeftii hore mana ku sii socon karno waxaan u malaynayaa propagandooyin hore ee iskaga jiray oo ahaa in axzaabtu ay yihiin jilayaal ama dad malxiisyo ah
sida Soomaalida ay tiraadaba ma nihin waxaan nahay dad qarashkooda la baxaya waxaan nahay dad juhuud daatiya ama maartay sheeg dadaalo gaar ah oo ay ayaga leeyihiin shacabka taageerayaasha noo ah iyo annagu aan leenahay ku socdo xoolo dawladeed kuma socono halaga ka soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda ilaa inta hooseyso xoolo dawladeed kuma socono gaadiidkeena annaga iskale waxaan isticmaalinay juhuudda dhan annaga iskale sidaas darteed ma rabno dadaalka dadka taageerayaashayna ay bixiyeen iyo codkooda inaan dayacno maartay meel duuran ay ku dhacaan waxaan rabnaa in garta shacabka u taallaa shacabka aan ku kala baxno ama xisbigan ha ka soo jeedo dawlad ama yuusan ka soo jeedin axsaabta kale tan ay nolol sameeyeen sidaas oo kale arrintaas uu shirkaan jaad ku saabsanaa waxaan rabnaa fariintaas inay meel dheer gaarto ma rabno waan ku qanacnay oo doorashada inaan qaatacno ma doonayno laakiin waxaan doonaynaa inay doorashada sida loogu talagalay u dhacdo haddii waxa sii socda ay sii socdaan annaga ka xisbi ahaan xorriyadaan u leenahay dimuqraadiyadeena ka mid tahay inaanan sii wadi karin anoo ahaa musharax hogaamiyaha koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesay ahna xisbiga sinaantii cadaaladda sincad musharax shay ahaa oo ka shirkun jaraa'id mayba ka saabsanyaa in ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan ummadda reer koonfur galbeed ammaanadii codsho iyo doorashadii la sheegay aan dayacna waana aan khiyaagna been aan ka sheegna runtan idayna yuu ujeedada oo ka shirka la gobaday mayba jartee hadal xigmad ah oo lan hogaamiyaalkii Afrika ku mid ahay ari waagii la jabhadeeyay ma eray mar kastaba oo aad is erta waa ka bari aftiinga la deeri mugdi leh hor lan galo hay runtii una mayba islahaynay doorasho xur ah xalaal ah xisbiye ah dimuqraadi ah free ah fair ah ya mayl raay koonfur galbeed ku dhii doonto mayba aragday hadalak odayaalkii reer koonfur galbeed hor aan sheegaynaa iri geeka dhanka dareerani muddo bil ah ya magaalada Baydhabo bambaxa ku jara shirar la gobado hay baawri la ijaaro hay guryaala ijaaran baasi la dhiibo hay wal dhidido hay unmayba islahaynay dalka maylan gudubay doorasho lan gudubi election free and fair doorasho xor ah xalaal ah yalan gudubi gobolka Baay shantiis degmo gobolka Bokool degmooyinka xorta sida Weejid Xudur Ceelberde dhaqdhaqaaqyo xoog badan iyo xisbiyada ku wadeen saas oo kale gobolka Shabeellada Hoose markii ku reeba degmada Qoryooley degmooyinka kale oo xorta dhaqdhaqaaqyo xoog badan iyo arday xisbiyada dhan ku wadeen runtii mayba islahaynay doorasho mayba lan gudubay xor ah xalaal ah may kale islahaynay wala raw equal opportunity ama fursad oo dadka dhan arday wada helayaan may ku bada fursad adduunyada markii xisbi dimuqraadiyad arday lan guduba mayba arday xisbiga dawladda ama xisbi xaakimka mayba fursadda usi dawladda arday siyaasa fursad la mid ah waa in sida xisbiyada kale sida ammaanka musharaxa xisbiga oo xisbi xaakimka ammaan shay salan ilaaliyo isin aragden baawrtilka ilaaliyo aragden musharaxiinta kale iyo maamulka xisbiyada kale ma haystaan bal in haystaan isku dhaafe amniga la ka abuse gareeyo hay arantiyeeda mayba nagatay aran la yaaba reewanka mayba eraayana lanki reewanka haynen afmaati lanka fasiro bal hela doone urbu hofeenkiya wala aloola wali arday ka jiritina malka daawaya la re un awalaagi dhan la yaaban oo si arday cadaalad darrada la yaabana nidaam xumada la yaabana oo la leeyahay oo doorashada wal galay dhamaati doorashada wal is dooradi xilbaanada wal dooradi hor doorasho ma dhiine xisbi mayba suubsoo haye wal primary election la raaw hoob lillahi ku ata xisbiga xaakimka gorada bad dadka in sheegi xalay dhan la bundubday la badriday dadkii arday ee meel disappointed ha ku nagadeen inuu doorashada dhamaatay inuu kursi kan laga qaadiyay kursi la qaadiyay ma jaran sheekhow doorashadii mal deerna tumunka bilal yalla ballami tumunka bilaa ilaa hatta meed in mayl raay lan kastaba xisbi kasto hay'ado ammaanka walayo la qobadayaan guddiga doorashooyinka
xisbi kasta inti baawure an ka tala galeen seejooyinka tiradiis ma in baahan yihiin xisbiyada dhammaantii oo wal aragday equal share aragday in baahan yihiin ma muuqato urbuu hofeenga aragday kee mala un lana tan xogayaa guud xisbiga sheegayo wasiirka oo mayl raaye caretakerska ama mayl raaye xilgaarsiinta oo wasiirka koonfur galbeed lanka salmaan le raw yo qoraal ina ku haaye yo cod ina ku haaye mayba handaday maamulkii sportiska handadi americana iyo axmed dollar iyo handadi tumi afar beri maamulka sportiska maynin sheegana in tacsiigal alla yarxamo langi tababaraha ay dhimadi in cayaarta in baajiyan mayno codseena bilisiyeedka mahabar in mayl raay cayaarta una nasiyayaan geekana weerar meer eedan ku xogno wasiirkani yoomahay ni qayliyahay wasiirka madil hadalni may bale anin wala yoomahay hogaamiye ku meel gaarka iyo yoomahay may yoomahay musharax GSB iyo yoomahay meel arday sabta am ahayd kuweel dada way sabta kuweel dada ma ahayd isbartiibada madisir cad lagu taba wal kala lagu taba wala waqti an Abdi Fataax Geesay ana gudoomiye gobol aha ana wasiir arrimo guud aha ana wasiir amni aha ana oo shacab aha ana gili qof gili oo koonfur galbeed geeka musharaxa isku dhaafe hatta manol madum isbartiibadii garoonkii Dr. Ayub Stadium walaagi arday xoog walaagi akhte aqle walaagi dadaal ana gili lan gili majaro hatta ma ila raay hawaan ku moodaasa meel yaka oranta ana duuda ma aragna arantiyaade loo qaateen ma ila raay mal ogolaado doono xisbiyada oo koonfur galbeed una may ogna reer sidcad xogiyo guuda edaay malxiis mi ihini musharaxa ana xisbigana malxiis ma dawladda Soomaaliya madaxweyne jeeynwi kiisha kale arday xisbiyalka arday yariin nacdo lan ni dari male nacdo lan ku fadaano male shacabka cod warsani xoolagaano ka dareerna kartidaano ka dareerna sumcadaano ka dareerna sharaftaano ka dareerna aqlagaano ka dareerna aqoontaano ka dareerna bulshada reer koonfur galbeed jaceelka iyo maxabada ni qabaan ya ka dareerna ma wal aqladadna ma ka dareerna beesadad ma ka dareerna taladad ma ka dareerna ma ogolaadana ma weelana ma aan aqbala doogna xisbiyalka kale oo xisbil xaakimka aan hayna maalmahan kulunga lahayni xisbiga tala qaran hogaamiyay Xasan Sheekh Sakhneyshing xisbiga Ramaas hogaamiyay Ilyas Ali Nuur xisbiga Karaama is aragni Abdi Asiis Jawaari Dr. Mayla Engineer Saalax arday is dheegni Idris Abdi Takhtar Dr. Idris Abdi Takhtar oo kan damboyti is dheegani wala dareera wala qaateen mayba is dheegnay hogaamiyaha xisbiga MBU is dheegni Sharif Xasan Sheekh Eedan wala dareera wala qaateen ma ogolaadana ma weela doogno dhammaan xisbiyadana ma inka baaqana shir degdeg in iska koyno ku talana wala dareera in doorasho xor xalaal in arday la qabado dawladda iyo guddiga doorashooyinka walaagi la sheegay arday ka baa doorasho dhinin rorong ma ogolaado doogno doorasho observers arday in lahayna ma ogolaado doogno doorasho oo korjoogayaal caalami arday in lahayna ma ogolaado doogno doorasho equal opportunity in lahayna ma ogolaado doogno doorasho mayla raay musharaxiinta iyo musharax xisbil xaakimka mayla raay miisko talaba in isla fadhiyaan ma ogolaado doogno wala baafuur beledka arday la giliyo hayo wala dul qaado doona ma xisbig arday xisbil xaakimka lixdan halabati xisbiyalkoona shan la siiyo hayo ما أنا شرورها ويد سنة ما يشان نيسي ولا صندوق أسكو هلنا حد نقضوا كوينا لأننا ما هيسن نقضوا هو بكوينا أوف كل هو حل بانكو أن هو بالنين عضو يوي أوف ما هيسن لكن ما يبيرها ويد سنة أنا بيرها نسي ما أقبل دوغنا ما ديجت دوغنا لما تاجرياش أحزابته ما ده حبنا لما تاجرياش حزبك السرعة ما يبقى أنك باقنة برئيس برتيبة ده أردينين بلنجة صفة شرعية أرديك قاعدني ما ينين بلنج الدور شحرة حلالة هو بالديدون يسكو ديدون ينبلنج إيه ده ما برات وانا هذا نفير إنه ولي بكم ده روشك ولي بس حكي
dagaalka Ukraine isku jari muddo la maalmood dowladda Ruushka waliba ka dhawaaqday xabad oo doonta la maalmood oo markaas labalada Ukraine siliin xusa sanad guuridii guulo midowga Sovietiga ku diiray Jarmalka waa naasiga intii la jaray dagaalka lamada adduunka wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ee mashaqada sheegtay in markaas xabad bilaaw doonta hameenka siyeedka May ilaa iyo 10 bilan iyadoo markaas la kama Sovieti sanad guuridii ku wareegatay guuliin qasay dagaalka qaranka inay kala waa Kremlin-ka shaaciyay ul High Ruushka Vladimir Putin oo soo khudbad ka jeediyay doon bandhig military ku dhigana fagaaro Red Square ee magaalada Moscow maalin Sabtida Putin markaas sidoo kale kulamo doona madax shil doon markaas caalami ku munaasabadaasi guud ahaan sanadka warka habeenada hotelka dana aska soo diraysiina Saar Maxamed ninka marda MK sanayay tayo salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh